deegaanka cagaaran oo hoostaga degmada Gaalkacyo isla markaana kamid ahaa deegaanada ay ka taagnaayeen sanadihii u dambeeyay xaaladaha biyayari ee saameynta ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa hay'adda wadaniga ee Xigma waxa ay ka hirgelisay elbiyood riiga kaas oo ay bulshadu baahi weyn u qabeen hirgelinta elbiyoodkan ayaa qayb ka ah mashruuca gargaar loogu fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaana mashruucan maalgelinaya hay'adda khayriga ee Al-Najaad ee dalka Kuwait daafurka elbiyoodkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo shacabka ku nool deegaankaasi cagaaran Maxamed Xasan oo ku hadlayay magaca hay'adda Xigma kana wakiil ahaa gudoomiyaha hay'adaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan runtii ceelkan waa elbiyood deegaanka loogu talagalay ilaa 20,000 oo qofna ay ka faa'iideysanayaan qoys waa ceel 200 mitir sidaan horeyba idinku sheegnay biyo wanaagsan oo macaan laga helay deegaankan waxaan u jeenaynaa Ilaahay idinkiis inuu ka faa'iideysto oo ilaalsado oo mustaqbalkana uu noqdo mid wax anfaca waxaan u mahad celinaynaa runtii dawladda Kuwait iyo jamciyadda Al-Najaad Al-Khayriya barnaamijkan maartay gacan taageero mugle ka geysatay oo halkan deegaankan cagaaran ka qoday bixiyeen dhaqaalihii ku baxay waxaan leenahay jazaakumullahu khayr al-jazaa waxaan u rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka ceelkan inuu noqdo mid waara deegaankii dadkuna ay ilaalsadaan qaar kamid ah bulshada deegaanka ayaa dhankooda muujiyay dareenkooda iyagoona ka mahad celiyay sidoo kalena sheegay inay baahi weyn u qabeen helitaanka elbiyoodkan alxamdulillah baad markay ka soo harto dawladda Kuwait ayaan uga mahad celinayaa hay'adda Al-Najaad Khayraaliya ayaan uga mahad celinayaa ilaahay baa noo dhisay iyaguna ilaahay baa noogu soo qabtay waan u mahad celinaynaa wax fiican bay noo qabatay ceelkaas ma dayacna waa naloo dhisay biyihiisina waa naanficeen alxamdulillah shukran alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale meel baadiyaa halkaas fog baan ka soo aroornay ceelasha kala gargudub bay nagu ahaayeen ilaahay mahadiis waa naloo soo dhaweeyo ceelkii waxa nala kaga qoday meel aan u baahnayn xilligu waa iska kulul yahay maatadu iyo xooluhu waa iska jilicsan yihiin